gabadhii waxay bilowday marka inay weelkii ay meesha ka gurtay wixii inay dhaqdo de cabaar markay weelkii wixii dhaqaysay baa waxay dareentay waxoogaa qoraxda inay soo kululaanayso cunugii caruurteeda ugu weynaaba u soo galay isagoo biyo rabo wuxuu biyo aan cabaan rabaa biyihii bay siisay waxay tiri gabadhii yaradii ahayd Muna ii soo qaado ii keen sababta qoraxda way soo kululaanaysaa meelahaas yani inay ku gurgurataan ka cabsanayaan gacmaha iyo ka gubato qoraxdii baa soo kululaanaysaa ii soo qaad cunugteerta ii keen cunugii wuu soo baxay meelahan uu saa wareega maba joogto cunugteerid waan waayay seed u weyday gabadhii way soo orday marka waxay tiri xagee aaday meelahan istaagtay meelihii lagu quraacanayay meeshuu salligu yaalay meeshii caruurta ku ciyaarayeen meelaha waxyaalaha caruurta ku ciyaaraan meelihii loo dhigay afartii wiil baa meelahan wareegaysanayo jooga ninkii Samiir ahaana ma joogo cunugteertayda ma joogto gabadhii waxay tiri marka tan waxa buu aaday Samiirkii talo cunugteerad xagee aaday Samiir bay tiri guriga marka ileen weyn yahay guriga gadaashiisa aaday gabadhii waxay isticmaal guriga gadaashiisa ka soo fiir cunugtii meelaha armay ku gurguuratay guriga gadaashiisa ka soo fiir umba istir gabadhii cunugtii yartaayda ninkii Samiir ahaayo waxay aragtay marka badayl haysta badayl oo saan meel u aasay god saan u aasay carro ku rogaya way soo socotay gabadhii way soo socotay way soo kor istaagtay markaas waxay tiri maxaad aasaysaayo meesha maxaad qoday waxba ma aasaynin waxba maana aasin ninku uu badhididsan yahayba gabadhii way shakiday marka waxay tiri anigu gabadheedii aasayba ma garanay waxay ugu malaysay inuu gabadheedii aasay meeshuu ninku aasiyay un bay qoftay de iyadoo qaylinaysa way qoftay cunugtii yarad baa ka soo baxday meesha oo nool oo naqasku intuu ku dhigay dhiman rabtay laakiin nool ilaahay amarkiisa iyadoo nool oo afka iyo sanka iyo indhahaba carradii intay ka gashay xaaladeeduba de ay xaalad tahay gabadhii cunugtii yarad meesha kala soo orday way soo qaaday way yaabtay waxay tiri leesh maxaad ilmaha yaree saqiirka 12 bilood bay jirtaa ilaahay masiiba kugu rid ilaahay ku cadaab gabadh baan dhalaa gabadh baan rabaa gabadhii dhal gabadh baan jeclahay waadigii hayee sababta ilmaha yaree saqiirka aad u aasisay maxay tahay iyadoo nool warmeed waarantay gabadh waxay tiri dee waalan yahay kan wuuba waalan yahay waaba wax waalan gabadhii ilmihii yaraa bay loo orday gurigay geysay carradii inay ka jafjafto inay biyo siiso inay biyo cabsiiso inay ka soo mantajiso inay dee ilmihii yaraa ka horjeeday noqotay saacad ninkii waxay ku tiri marka sabab gabadha yartaa sababtaad u aastay baan kaa rabaa haddii kale waxay tiri wallahi booliiskan kuu sheego aan ku xidhi